soo dhawaada waxaan idin sheegayaa dahabka markii la joogo inta badan dadku waxay yiraahdaan dahabka horta dahab baan doonaynaa dahab baa la iibsadaa dahab baa keera laakiin maanta waxaan rabaa inaan idin sheego xilliga ugu horeysay ee dahabka la bilaabay in la isticmaalo qiyaastii waxay ahayd ilaa 7 kun oo sano ka hor ilaa 6 kun oo sano ka hor qiyaasta xilliga dahabka waxa loo isticmaali jiray waxay ahayd in loo isticmaalo ma garanaysaa inaad qofku uu isku qurxiyo xilligaas waxaa laga guri jiray meelaha wabiyada iyo meelaha durdurada leh iyo meelaha buuraha leh xilliga dahabkii laga shaqaysan jiray dadka ka shaqeeya waxay ku heli jireen si sahlan maadaama wuxuu ahaa maado xilligaas maadooyinkii badnaa ee la heli karay kamida ilaa iyo intii ka dambeysayna dee gacanta ku socotay sidaa laaligeed ayuu hadda u yaraaday maadadaasi weligeedba waxay caan ku ahayd 3 qodob kow waxay caan ku ahayd inay maado markaas hooseeya tahay oo aan dadku si sahla u arki karin oo mar walba dhagaxa iyo ciidda meesha hoose kaga jira sidoo kale waxay caan ku ahayd maado aan taxaloobin marna oo isbedelin xilli laga joogo ilaa 500 ilaa iyo 5,000 oo sano ilaa 4,500 oo sano ka hor xataa waxaa jirtay qabuuro dib loo baaray in laga helay inay ku jireen dahab iyo waxyaalo kale oo qadiimiya wadanadii qabuuraha laga qoday oo laga hubiyay markii ugu horeeyay waxa kamid ah Masar iyo Mesopotamia iyo Balkanka iyo wadano noocaas ah kamid ahaa mar walba marka muhiimad buu lahaa xilligee lacag ahaan loo isticmaalay su'aashu hadday inoo taagan tahay waxa lacag ahaan loo isticmaalay xilli ilaa iyo gaaraya 3,000 oo sano ayuu hadda lacag ahaan u isticmaalayaa xilliga ugu horeeyayna wadankan hadda loo yaqaan Turkiga oo xilliga boqortooyo ahaa ayaa sameeyay markii ugu horeysay dahab la shaabadiyay oo meel la dhigay qaacidiyan marka arrinkan asaas muhiim u yahay waxaa barnaamijkan idinla wadaagay maanta wajigiisa iyo soo bandhigay aniga Cabdullaahi Sheekh Xasan barnaamijka inaad subscribe iyo like iyo share ku gurtaan waan jeclaan